Assalaamu calaykum walaalaha Soomaaliyeed meel walba joogtiin. YouTube waa YouTube-kiini. YouTube-ka subscribe noo dhaha, share noo dhaha, like noo dhaha. Ninka sii share gareyn kara sii share gareeyo. Maanta qodobadeena waxay ku saabsan yihiin ciyaartooyga Victor Gyokeres. Haddaan taageeraha Arsenal Victor Gyokeres madaxaas naga galay waayo muddo badan aan sugayn. Annaga hataa maranba shakinay oon isdhahnay kooxda Arsenal Victor Gyokeres ma ka baxday waayo kooxda Arsenal labadii sano u dambeysay waxaad u maleysaa xagga dhaliyaha inay eber ka ahayd, laakiin Victor Gyokeres hadduu oo kooxda Arsenal yimaado xagga dhalinta kooxda Arsenal goosha waa safe waayo waxaan u leeyahay Victor Gyokeres waa ninaan ognahay oo xilli ciyaareedkii hadda la soo dhaafay 53 gool ku lug lahay. Marka Victor Gyokeres waa nin kooxda Arsenal anfacay waayo Gabriel Jesus Arsenal meel ku gaari karto waayo Gabriel Jesus nin walba og yahay waa isbitaalay waayo taageeraha Arsenal waxaa mar walba huhday u dashay hal nooba oo weliba noobaha sataa nooba lahooba aan ahayn oo mar walba dhaawaciisa as badan yahay ay kooxda Arsenal haystaa. Laakiin haddii Victor Gyokeres la keeno waa ciyaartooy runtii mustaqbal fiican waa ciyaartooy dhinac walba ka dhisan kooxda Arsenal anfacayo waayo Victor Gyokeres kooxda Arsenal muddo fiican askula qabsan doona waayo ninkaas wax walba waa ognahay anigu inuu dhaliyahay Victor Gyokeres cid walba way ogtahay cidda uu ka saaran yahay ma laha. Markii Victor Gyokeres laba garab oo fiican kooxda Arsenal hadda way joogaan waayo haddii kubadda dhinacyada ay ka yimaadaan hor kubadda dhinacyada haddii ka yimaadaan dhamaystir dhexda ay ma lahayn, laakiin hadda kubadda haddii labada dhinac ka imaadaan ninkii dhamaystir leh kooxda Arsenal dish otada ku dhamaystir leh waa la keenay Victor Gyokeres waa haddeer nin kooxda Arsenal maadaama annaga ogaan 5 sano uu saxiixay, laakiin halkaas waxaa aad aaga jira dulduleelo aad u fara badan oo ciyaartooyda iyo taageeraha kooxda Arsenal shaki weyn geliyay waayo maamulka way aamuseen, maamulka Sports Lisbon way aamuseen. Shakiga marka anaga ka taageera aan kooxda Arsenal la geliyay shakigaas oo ahay. Markaas Victor Gyokeres kooxda Arsenal haddeer waa yimid hambaliyaan leeyahay taageeraha Arsenal sanadkan haddii sanadkiina uu noqon waayo gidan faraa ka qaada saaxiibkii rijaalna waxaan leeyahay rijaalo muuqaalkayga hadduu soo gaar mas aad aragto waxaad sheegaysaa jira sanadkan haddaan qaadi wayna geedkan nuu kala wada waa ma garatay. Dhanka Manchester uu leexdo waayo kooxda Man United waxay rabtaa hadda inay Mareykanka u duusho waxaad u maleysaa Mbeumo waa la soo bandhigay ciyaartooydii ka horreysay sidoo kale kooxda Man United waxay rabtaa hadda inay ka tagto 5 ciyaartooy oo magacawday 5 ciyaartooy Sanja ka mid ah Antonio ka mid ah Rashford suu iska daa wuxuu aaday Barcelona waayo Rashford aadan ugu xumaaday Man United inay Rashford fasaxdo, laakiin ciyaartooy kale Jesus asaa yaqaana waayo tababaro walba wuxuu leeyahay Jesus. Marka waxaan leeyahay aniga kooxda Manchester United waxba igama gelin, laakiin kooxda Man United sanadkan ayada naftirkeeda Mbeumo ognahay sanadkii haddeer uu cadareeyay 20 gool dhaliye kule Man United aad u anfici doonaa. Marka asxaabta waxaan leeyahay YouTube-ka walaalow haddaad soo gasho daawo haddaad daawatani hal marood like ii saarto ood share ii tiraahdo waxay kaa dhibaysa malaha wiil Soomaaliyeedan ahay qofka kasta waa la sii dhiirigeliyaa maadaama aan kaamira nadiif haysanin waxaan wax ku duubaa mobile. Marka insha Allah ii dhiirigeliya asxaabta ali dhiirigeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.